ay joogto aan ku kala sharaxo khaatumada ra'iisul wasaarayaasha iyo habdhaqankooda kala duwan anigoo adeegsanaya erebixinno kooban oo ka turjumaya sida ay albaabka uga baxeen. kow gaariga ka deg adigoo aan qalbin. waxaa dalka soo maray ra'iisul wasaarayaal diiday inay ajaaniib u shirqoolaan madaxweynahooda oo dano garacan uga fuliyaan gudaha dowladooda, sidoo kale diiday inay goradda ka fuulaan qofkii sharfay ee shaqada keenay, xitaa ka fogaaday inay damcaan darinta uu ku fadhiyo inay ka jiitaan. waxa u soo baxday inay muunad iyo magac ka helayaan inay ka xishoodaan ninkii xilka siiyey. mararka qaar way isku dayeen inay abuuraan jawi bedeli kara xaaladda dalka oo ku sii hayn kara, laakiin kolkay ku adkaatay waxay go'aansadeen inay gaariga kaligood ka degaan si tartiib ah ayagoo ka fogaanaya inuu wada qallimo. raggaas ayaana mid u dul istaagaya, ayuu yiri Fahad Yaasiin. Dr. Cali Maxamed Geedi isagoo haysta taageerada baarlamaanka oo buuxda, waliba kaga adkaaday madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo wada jira, haddana si degan oo sahlan buu gaariga uga degay. sidoo kale mar waxa uu haystay garab istaag buuxa oo beesha caalamka ah oo haddii uu ka soo horjeesto madaxweynihiisa taasoo uu diiday oo uu waliba carab kulul uga jawaabay. kolkaas kadibna ay bilaabeen qorshihii Geedi xilka looga tuuri lahaa. marag waxaa loo hayaa madaxweyne Cabdullaahi Allaha u naxariistee inuu ka shalaayay inuu nin karti leh oo misna uu roonaa lumiyey. labo Cumar Cabdirashiid muddaxileedkiisii koobaad waxa uu gaariga ka degay isagoo haysta taageerada beesha caalamka, lana hareereeyay madaxweynihii oo ku khasbanaaday inuu ka laabto go'aanadiisa qaarkood. laakiin Cumar wuu ka tegay si degan oo shanqar yar, taasoo dhalisay inuu isla jagadii mar labaad hanto oo siyaasad lagula shirkoobo. waana siyaasiga kaliya ee laba jeer noqday ra'iisul wasaare taariikhda Soomaalida. saddex Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taageeradii ugu weyneed isagoo haysta oo shacabku u mudaharaadayaan, lana leeyahay caynaanka hay oo aan naga tegin. sidoo kalena hore u soo diiday inuu ajnabi ku caawiyo shirqool siyaasadeed oo lala damacsanaa madaxweynihiisii, ayuu gaariga ka degay. intaas waxaa dheer waa ra'iisul wasaaraha kaliya xilka ka degay isagoo shardi ka dhigtay in qofka dhaxlaya jagada oo ah ku-xigeenkiisii, waana loo fuliyey ballantaas. waxa uu si mudan markii uu Farmaajo diiday faragelinta sheeyaha waxaa lagu yiri waxaanu ku tusaynaa adigoo la isugu kaa tegay oo inta kale kula dirirsan tahay. Farmaajo ficilkiisi wanaagsanaa wuxuu ku helay inuu dalaco madaxweynaha jamhuuriyadda. saddexdaas mas'uul waxaan ka dhaxalnay inuu dalku sii socdo, iyagana xushmad iyo qadarin ku kasbadeen. labo dulmane haddana la gaaday. Cabdi Faarax Saaci Shirdoon waa hanaan uguba oo ka duwan hababka ay ku baxeen ra'iisul wasaarayaashii soo maray dalka, isagoo daacad u ah madaxweynihiisii, shaqadana aysan isku qaban, shisheeyana aan ka raacin, dalkana uusan ku jirin qalalaasa siyaasadeed oo ay tahay in lagu dejiyo, ayaa weerar gaadmaa lagu soo qaaday, haddana laga hor istaagay inuu hortago baarlamaanka. sidaas baana lagu xukumay isagoo maqan. ra'iisul wasaare Saacid waa sabray, waana ka tegay booska si buuq la'aan ah, edeb iyo deganaan buu raaciyay oo hadal xun iyo ficil hooseeya kama daba tuurin madaxweynihiisii. saddex saaxiib iyo cadow isku soo ula dhaqan. tan iyada waa ogow, waliba waa wada ogow dhalashada dhaqanka iyo dhamaadka. waa marka madaxweynaha shaqada u wada dhaafo ra'iisul wasaarihiisa, wargelin iyo wada tashi kaliya ku ekaado, hagid iyo hogaamid qaran marka laga reebo, muuqaalka gole ka hadalka iyo matalaadda howlaha dowladda usugla mugla uga muuqda ra'iisul wasaaraha. taas waxay u qalantay inuu daacad buuxda u sii noqdo madaxweynihii soo magacaabay, haddana muuqasho iyo awood buuxo ugu daray. laakiin waa la arkay isagoo sheeyo la shirqoolaya, isku dayayo inuu siro dadka oo dhan, xitaa naftiisa haddii ay ku kalifto. markii dambena dadka oo wada faraxsan uu kaligiis ku guuleystay inuu dhaxlo, madaxweynuhu u khiyaamay. bal yaabkan eega waxa adag inaad fahanto marka uu xumaanta kuu falkinaya inta badan warankiisu shiish male ilaan waa nabar xatooyeehe ama waa gacan saddexaad. laakiin haddii uu kula helo waranka waxa uu kari karaa inuu caddaymo kugu tuso in warankaas uusan isagu kugu shiishin ee halgaadkadiisa kugu dhacday, ama waxa uu ku tusi karaa caddaymo aad ku qanacdo in qofka hebel la yidhaahdaa uu ganta gaashaan ka qabtay, sidaasna ay falaartu kuugu soo fakatay. kolkaasna waxa kaliya kuu furan waa inaad dhibtii uu kuu geystay asaga naftiisa uga tacsiyeyso aad ku dhahdo waxba ha u arkin inaad igu ceebowday, iskana iloo waxa igu dhacay oo waan ogahay adiga inaadan rabin, raallina aadan ka ahayn dhibta ay soo gaartay. war ninku xirfad badan ah oo xariifsan ah. wuxuuse ku dambeeyey kaligiis inuu quusay oo xitaa rakaabkii saarnaa doontii uu naaquudaha ka ahaa ayaa biyaha dhinacooda tuubada uga soo furay. mid baa igu yiri ka waran qofka weli la jaalka sida adiguba ahaan jirtay mar. waxaan ugu jawaabay jacaylkiisa ninkii iiga dambeeya, nacaybkiisana wuu iiga dambayn, waana khaatumada qofka si isku mid ah ula dhaqma saaxiib iyo cadowgiisa. afar ma liibaana lagu liibaanay. noocan wuu jiraa, waana marka damac xukun ama dantaada ah aydan isku qaban madaxweynahaaga,
laakiin aad shisheeye u gacan gasho weliba iyagoo aan kula heshiinin intay si xun kuu dhibaateeyeen oo nafsi ah oo labada dal sirdoonnadoodu ay kuu wada dhigeen shax sharkeedu aad u sarreeyo ay ku gaarsiiyaan adigoo ka cararaya inay xogtaadu bannaanka u soo baxdo aad u qabato shaqo kasta oo duminaysa dalka dhaawac uusan ka soo kici karinna ku dhufato madaxweynihii ku sharfay habka aad u shaqaynaysana ay ku dhammaato inaadan adiga mustaqbal ka lahayn aadna soo fulis wax kasta oo lagaa rabay si lafahaaga aad u badbaadsato noocan waxaa la dhahaa maliimahana lagu liibaanay waa marka aad dhibana u tahay shirqool aad is aragtay inaad dhexda uga jirto adigoon go'aansanin ama dantaadu ku jirin dadkuna maadaama aysan haynin xogtaada rasmiga ah waxa ay ku wareerayaan sifada ay ku siinayaan waa nin rag oo iska celiye hebel iyo hebel waa nin wararsan oo aan dantiisa aqoonin armaa laga gardaran yahay iyo sifooyin kale oo dhammaantood aanan xog saxa ku dhisnayn 5 khasaaraha noo qaybi waa marka aad damacdo inaad tartan la gasho madaxweynahaaga waad iska dhaadhiciso u sharax xumadda inaad ka fiican tahay madaxweynihii ku magacaabay dowladdana wixii ka qaldamay adiga aadan qayb ka ahayn waa marka damcu ku indhatiro eed ku dhammayso intaad la safato wareegga labaad ama saddexaad ee tartanka qofka mucaaradka idinku ahaa adiga iyo madaxweynahaada aad jilaafada la ridayso jidkan dhowr jeer baa la tijaabiyey lagama waantoomin lagumana guulaysto waa halka xirsi magan ka yidhi talo xume u tag oo talo xume ka tag waa tubtaydii waxaan u soo joogay iyadoo wareeggii labaad la joogo oo ra'iisul wasaare xilka hayo oo tartanka ka haraya wareegga labaad oo baryo iyo shuruud hordhigaya musharax mucaarad aha oo guulaysan raba misna warka loogu koobay dadka aan tixgelin doona baan kugu daraynaa Fahad Yaasiin qoraalkiisa waxa uu ku soo gabagabeeyay xamse maxaa xalaa marka koobaad dadkoo dhan waxaad uga duwan tahay adigu nasiib kuma aadan imaan oo magacaaga googa lagama soo helin sidoo kale tala saaxiibku yaqaana iyo olole beeleed kuma aadan noqon ra'iisul wasaare waxa tahay xubin xisbiga madaxweynaha ka tirsanaa aqoon dheer ayuu ku lahaa adigana waad soo samirtay oo muddaxileedkii hore tabasho ayaa ku dhamaysatay 5 sano oo mucaaradnimo aadan waa la soo safatay hogaamiyahaaga intaas adigoo xasuusta taladeeda oo kooban waa sidan kow sidaad u muuqato inaad sanadkii dhammaaday u dhaqmayso ku sii wad waana sifooyinka aan kugu soo xusay ee aan kugu ammaanay 2 rag damac kama dhammaaday hadday kugu soo xuluulato hawo dhahaysa annamaan madaxweyne noqdo waa iga tale awood aadan u soo dhididin ha ku isku dhadhamin orodoo soo kifaac oo dadnimadaada soo tijaabso qoriga lagu dhiibtay inta ku hartay ee rasaasa intaad u celiso ninkii lahaa waliba si qurxan oo aad u sii dhaqday si tartiiba iridda uga siibo markaa kadib tolkaa talada iyo tayada intaad isku darsato damacaaga u soo harjeed haddaad isku daydo kursi madaxweyne baan si dhuumasho ku dafayaa hortaa la holin waa ee bal tubta isku tashiga soo tijaabe 3 shisheeyaha u soo raacin madaxweynahaaga marna limin kuma gaaraysid waxaad ku dambayn doontaa adigoo bir ismoodaya inaad sida buufinkii keligii u dilaacdo ama intay wax fool xun kugu sameeyaan baad hayin la hogaansada u noqon kolkaas bay ficiladaada oo dhan wada fool xumaanayaan markaad xilka weysana shisheeye iyo sokeeye mid ku salaami arki maysid 4 muddaxileedkii hore ee madaxweyne xasan sheekh ayay isqabteen ra'iisul wasaarayaashiisii xantii oo aan bannaanka u soo bixin buu aniga ii yeeray mas-uul isagu markaas suuqa ka soo maqlay inaan gadoodsanahay war dheer oo nuxurkiisu yahay inaad ila jirsatid baan rabaa oo aan wasiir ku magacaabo si aan ula diro madaxweyne xasan sheekh sidii uu war kale iiga sugayay baan ku idhi malaha waad ilowdaye inaan ka goos qabsaday madaxweyne xasan sheekh waxa saldhigu ahaa inuu adiga kuu magacaabay ra'iisul wasaare haddeerna kolka dagaalkiinu qarxo anigu waxa aan dib ula heshiinayaa madaxweynaha ee haddaad tala yeelayso ordoo la heshiy oo la saaxiib madaxweynaha mudana ra'iisul wasaare xasuusnow dad badan waxa ay madaxweynaha ula dirisan yihiin dartaa maalintaas qabataanna isaga ayay la jirsanayaan sidaa darteed meeshaada ku qalalso kuna qabowso deeqsinimada xadka dhaafsan iska yaree oo jagada ra'iisul wasaaraha u ekeysay mid jirta oo joogta adigoon madaxa ku dhufanin madaxweynahaaga waan arkaa inaad saxiixday qodobo dastuur ka khilaafsan oo taabanaya awoodaha xafiisyada ugu sarreeya ee dalka kuma lihi anigu sida dadka qaar beesha aad matasho maxaad ula tashan weysay waxaanse ku leeyahay iska ilaali inaad saxiixdo warqad dastuurka si qayaxan uga hor imaanaysa waayo adigu sharci fuliyo un baa tahay ee sharci dejiye ma tihid sidoo kale ha saxiixin waxaan kuu qalmin calafna ilaah baad u leedahay ee cadkaad ku fadhido hana cunin hana ceemaynin